wacay kulaha oo wuxuu igu dhahay ma lagu wasooya ilaahow adaan dhahay bal ilaahay ku dhilay naagtaasi waa madhalays haday madhalays tahay Naima Joker nin baa qabay oo tagaadiga ku wasa ur videogan hadii uu ku soo gaaro dhamayso adoo mahadsan waxa ka heli doontaa wax walba oo runtii oo isleedahay waxa rabaa inaan ku qiimeeyo fikirkaaga adoo dhamaysanin hadagdag marka dhamaysto kadibna fikirkaaga waa inoo muhiim Naima Joker iyo walaasheeda farxi kabeero isku dhagan TikTok joogta iska gadinay iskarbaashay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسو دوادا معلم channel أصحابتا عصب وانسو دوينينا كوهرنا جوغنا كون إيكو جروا ما سنتين ساسو عركتين أصحابتا وحا إني ودا سدح نين عنده أو براها بلشدة عانكا مقع كولي بلشدة صوماليات انت بدن رنتي إيكو عرينيهين كومانان كون أو قف aaladahooda hadday noqon lahayd YouTube hadday noqon lahayd Facebook ama hadday noqon lahayd TikTok intaba saddexda nin wax kale uma soo qaadan runtii waxaan rabaa inay ila qiimeysaan saaso aragteen video bloggiisa waxaan dhahay videogan hadii afurtid runtii dhamayso ha degdegin fikirkaagana waa inuu muhiim inaad nala wadaagtid marka video dhamaysid kadib asxaabta waxaan la soconay inta badan in baraha bulshada runtii hadallo أو ناكسنين نسكو مرناي ساعدية أو قدم بيه أيضا هذا الله سيد أحمرهين لابا شخصي ولا عليه أنا كمده أو هنتي لابا دانا قربوط أو قبل صومالية مركي علي ما هنا أنا قرد عضو رقل صومالية حالا يرهوا إنه يتحقلان وإنت هنتي أو هنتي كله دو مركاسي أفيه لسيت أم حرير لله معها ومضنا مالده كرام رقل مالده كرام لكن وحا عيبه إن هنتي الله كلا صبته labadan gabdhood oo waladeena oo is haya haddaba saddexdan video aan soo qaatay oo aan rabo inay la qiimeysaan xabad u dul istaagi doonaa waxaan rabaa koow inaan qiimeyno qof walba fikirkiisa iyo hadalkiisa meesha ula jeedo aniga runtii shakhsiyan saddexdan nin ma kala jecli waa saddex qof oo dhalinyaro ah oo runtii kamid ah asxaabta baraha bulshada runtii oo ku jiro laakiin shakhsi kamid ah ayaa aad ula dhacay fikirkiisa iyo hadalkiisa labada shakhsi kaleeto waa ka xumahay in runtii waqtiga hadda aan ku jirno ay runtii arrimo noocan oo kaleeto ah ay la yimaadaan baraha bulshada ayadoo ognahay inay ku xiran yihiin sayni sheegay kumanaan kun oo qof haddii aan ku hormaro saddexda shakhsi magacyadooda ayadoo gaabana soo qaateen kuwa abtiliibaan waa shakhsi caan ah introduction u baahno waxaa kaloo ku xigo laacibka weyn ee qadka dhexe runtii TikTok gilgilay saacadii ugu dambeysay Captain Ayub iyo waxaa kaloo ku xiga laacibka kabtanka fanka ee bixiyay aniga qurux ku dhigle laakiin hadii aan kala qad qaado saddexdan nin waxaan soo qaatay fikir ahaan waxay dhaxda ka galeen arrimihii socday oo runtii gabdhaha walaaladana sayni sheegay laakiin saddexdoodaba isku fikir ma ahan saan u kala jeedaan haddii aan ku bilaabo shakhsiga koowaad oo abtiliibaan ah aan soo dhageysana abtiliibaan hadalkiisa kadib ayaan qiimeynaynaa wixii ka soo baxo abtiliibaana tiri soo wacay kulaha oo wuxuu igu dhahay ma lagu wasooya ilaahow adaan dhahay oo igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahi hooyadii xasan maxamed cali wataana codkeeda maqlin inaana gabar Soomaaliyeed xitaa ani u quurinba ma lagu wasooya yani qof in Paris lagu soo biyaa la arkay yani أبا يدقيسو إيقاد ماو أنيقا إيقاد ماو I know تلقاقا أدونكو أقول نعبتا إيقاد ماو دين إيقاد ماليدا نعيمة جوكر إيقاد ماو بريقان فيلنكا وضا تشينين اللي مقابين بينها شيء ولا إقابيو نيكيقا أكجيف انت كنت نيكا دي بين ما اسكو شيقين هاني بين اسكو شيقين فهذا الحواسي كبعدي وحاكو قدام بيا عبد الغني موسى أو إذا فعلا نستحيين دو إكس هسبان كيدي أو سويدن كسو عربي هذا أنا تراك ساري حبيت وشيء يا وقبل مركز أبتليبان عايو من الوسويا هذا اللي بان جامع وكل هاي سبيكر وحنا إلى هذا هم رنتنا وحنا صبريو لكن حروا كنا كمان فكر كوجا ده أنا نفكر ليه أنا كان حاجة وعنتي قف
fiican ma walaal xaqiiqo laga hadlo qof aad u xun waa ninka sixiroolaha oo bustaa hoostiisa kaaga dhaxaysi jiray anaa ciiriyey ninkaan idin faclana nasteexa indho xumeyn aad ku xumeynayso aad u guursatay aan bixisna anigu social media waxaan abaal u hayaa waa farxiyo kabayare inaan sidaysan macna sameynayso waa qof weyn aqli leh ilaahay runtii hadda waxaan umeyna abtiliibaan inuusan aqli la dhehaynin abtiliibaan aqli u dhiman oo runtii uu soo koray aqal walba lehinin aqligiisa garaadkiisa ilaahay waa dhamaystiran saddexda nin ayni sheegay waa abtiliibaan kow kabtan ayuub iyo qurux ku dhiigle runtii saddexdooda video gabagabadiisa waxaan kala siin doonaa darajo laakiin markaad si u fiirisid in gabar Soomaaliyeed saan loo waxad gudbo anima qaba shakhsiyan waa dulilnimati ugu weyne waayo gabadhu waa gabar walaasha ah gabar Soomaaliyeed shakhsi aad isku fiican tihiin waayo dabcan birina heshiisna laga yaabaa waxana waa wax save gareysan oo runtii aalada TikTok ama YouTube ku jirto si walba u heshiisaan waxa laga yaabaa qofka Amerika maalin inuu arko videoyasha noocan kale ah oo u shaqo qofka maanta uu kula galiyay ama way heshiiseen laakiin shalay saan ku dhahay oo maskaxdiisa ku soo laabato marka waxaan dhihi lahaa ninkan runtii aad u xumahay in hadal noocan oo kale ah oo bulshada soo dhex fadhiisto wax fiican ma ahayn dabcan wada aragtan dhamaantiina laakiin fikir aan ka qaba wuxuu yahay inay tahay wax qaldan oo habooneen oo runtii aad loo wanaagsan yahay waayo labadan gabdhood runtii hadda uu kala sheegay waa loo gabdhood waaliisa inuu mid u sacabtamo midna uu aflagaadeeyo ama waxyaabo runtii oo u qarsana oo banaan keeno horta wax fiican ma aha wax badan aan ka hadalnay laakiin way soo laabanaysaa labada qof waa saaxiib way heshiis film wada jilayaan wax walba wadaagayaan laakiin markay isku dhacaan inta badan waxa dhacda in runtii waxyaabo aan dhagaha bulshada u habooneen ay nala wadaagaan kabtiliibaan waxaan dhihi lahaa marada ka dhacday soo laabo raaligelin buuxdana waa laga sugayaa qof kale ku xigo aan diristaagi doonaa kabtanka weyn kabtan ayuub naftiisa ma yareysanin laakiin gabagabada videoga ayaan qiimeyn doonaa saddexdoodaba kabtan ayuub bal ilaahay aan ku dhin leh naagtaasi waa madhalays hadday madhalays tahay Naima Joker nin baa qabay ora u tagay ku wasa ur ku yeelay adiga ku wasa ku yeelay oo u tagay waaya illa naag baa agtay naag ku xayda waa madhalays iyo waa diyaal ku ruuya si ay nik waxa la oran karaa kaale bedel baa la oran karaa naag laakiin haduusan u baahnayn dubaha ninka ilka casi maxay tahay diyaal ku ruuya Naima ma dhasho hayd Dubai rabta ilka casi Dubai rabaa wax kale ma oran karaan wax kale waan ku sifay ma garan karo nin laag la qabale uu ma dhasho waa kan qabow kaale aniga dubaana ku dhalayo astaghfirullah subhanallahi azza wa jalla subhanallahi azza wa jalla kabtan ayuub horta gabar mucaynin waa arka asagoo runtii gabar kale oo lada gudho ishay mid kamid hadda ka hor karbaashayo laakiin wuxuu karbaashay waxay ahayd arrin qabiilada runtii inay sheego sa u faham dhamaanteena laakiin naftiisa way kala sarayaan raggan sa inay sheegay laakiin wax fiican asaga hadda wuxuu uga dugan yahay abtiliibaan waxay tahay hadda videogan gabar mucaan laakiin wuxuu difaacayaa labada qof oo ishay mid kamid ah marka wuxuu aad difaacayaa gabadha la dhaho Naima Joker abtiliibaan hadda wuxuu difaacay farxi kabayare hadda runtii isku sheegno laakiin ninkan hadda aan dhageysanaynay oo kabtan ayuub ah wuxuu runtii aad u difaacay Naima Joker xajigeeda ilka casaqays asoo ka difaacay nin kale oo soo galay laakiin asaga wuxuu runtii uu hadda si xun u karbaashay in caana aw taqaanaan baraha bulshada magac ku leh wariye weyn ah runtii ku nool qaaradda Yurub magaciisa ininkan laga rabo inay sheegtaan marka asxaabta labada nin marka hadda la qiimeeyo labadooda la qiimeeyo gadaal ayaan ka sheegi doonaa qiimahooda sidii u kala sareeyaan qiimeyn ahaan marka la fiiriyo laakiin sayni sheegay gabdhahan waa gabdho waaladeena way ishayaan Amerika maalin way heshinayaan marka wax fiican ma aha wali waxaan ku taagan hadalkii ahaa dadkan biri way heshinayaan laakiin dhaxdooda ha ku dhumina waa sheekada xasan sheekh maxamuud ah waraahoy dhiiqlo way lagu gelin marka dhiiqlo way lagu gelin haddana waxaan dhageysanaynaa legend kale oo ugu dambeeyay oo ah qurux ku dhiigle videogan sayni sheegay laga yaabo inuu dabcan inuu dheeraado laakiin waxa rabaa fikirkiina diibataan saddexdan qofka oo aqli badan
ayaan rabaa in aa ila wadaagtaan. ababala isha baxarka biyaha muufada fanyoq furk waay ya waxaa u jeeday walaasheeda Nimco Joker iyo walaasheeda Farxii Kabeero isku dhagan TikTok jugta iska gedinaya iskarbaashay waxaa idin sheegaa makasay adig iscaay laakiin tim waxaa jira international rufyaan la dhahay ay ya asta weri remember ya ani la dul saara le adiko iskarbaashay waxaa lagu daw dhajinaa adiko isle حبيبتي baby honey sweethearts baby adiko wax isla cunay ya adiko maaragti isku marxabeynaa waxa lagu dhijinaa makase adiko iscaynayno ceebka weyn ma jirto ceebka weyn marna iskarbaasha marna xabiibti isdhaa marka kala roonaada intii tagtay waa tagtay tagtada ka gaara team international rufyaan faraha ka qaada dadkaas ii daaya waa dad aan qurux ku dhiigle waa arag naftiisa laakiin uu ka fikir duwan yahay labada nin oo kale aan soo aragnay horta saddexdan shakhsi saynay sheegay waa saddex shakhsi oo caan ah bulshada Soomaaliyeed magac ku leh kumanaan kun oo qof ku xiran marka mar walba fiican waxay dadka la wadaagayaan inay qiimeeyaan ko inaysan la soo fadhiisan baraha bulshada ka hor saddexdooda hadaan kala qiimeeyo kabtan waxaan rabaa Abtiliibaan runtii waxaan ku tilmaami lahaa aad ayuu u xadgudbay gabadhaas walaashiis ah uu ku xadgudbay waxaana fiican inuu runtii raaligelin uu siiyo wax fiican ma ahayn in waxay isku og yihiin oo sir ah oo dhaxmar labadooda ama ay ka sheekaysteen ama uu ogyahay naftiisa oo gabadha walaashiis ku saabsan inuu anagu la wadaago ama baraha bulshada uu la soo fadhiisto dabcan waxaan leeyahay waa wax asay ceeb ku ah birin uu ka shaleen doono waxyaabo noocaas oo kale ah waxaa soo haray kabtan ayuub oo ogna dhamaanteen waa nin xirtay shaati qabiil marka runta laga hadlo waayo TikTok ayuu soo fadhiistay asagoo difaacayo qabiilada Soomaaliyeed qabiil kamid ah kuma caynayno kuma caaradeen laakiin waxaan dhihi lahaa waxaa lagu jiraa 2021da arrimaha noocaas kale ah waxaan dhihi lahaa ninkan hadda ka hor aan ka hadloon dhahay naga daanayna og in la daanayna laakiin naga yareeya anyway asaga shaatigiisu waa cad yahay markaas u fiirisid laakiin wuxuu uga dugan yahay kabtan ayuub Abtiliibaan waxay tahay kabtan ayuub videogan gabar macaanin nin asaga la mid ah oo ficiisa ayuu karbaashay ta ayda runtii ninka faca hadaad inuu ku galaayo ama qof uu caynayo inay caysid laba nin facatiin oo is hayaan dabcan hadda kale ogna in TikTok isku qabteen labadooda iskarbaasheen macaara isku ahaayeen haddana tii waay ninka odayga ah ayaa soo difaacay labada gabdhood is hay mid kamid ah ninkana tan buu difaacaya marka labadooda wili sida macaara isku yihiin markaas isku fiirisid marka kabtan ayuub buu ka duwan yahay Abtiliibaan naftiisa walow ay habooneed arrimaha noocan kale inuu ka gaabsado laakiin hadeeba dhacday uu ka duwan yahay kabtan Abtiliibaan sa inay sheegay oo waa shakhsi aan ku xadgudbin gabar Soomaaliyeed videogan hadaan duway hadda ka hor dhacday inuu gabar caay waa arin dhamaanteen ani waa arkay laakiin hadda videogan wuxuu si xun u karbaashay nin asal mid ah oo ficiisa ah taasna runtii waa laba nin is haayo tama dhaxgali kano laakiin gabdhaha Soomaaliyeed in caayo sida Abtiliibaan uu sameeyay waa ceeb waana qalad waxa ku soo haray qurux ku dhigle ani xaggayga waa best waa legend waayo uu arkay dadka is haayo ku wuxuu sheegay in laba gabdhood walaalihiis yihiin labadiis garbood yihiin aflagaadada noocan kale wax ka imaan kan uu sheegay inay u habooneen ayaka dadku dhex dhumayaan wuxuu dhahay iska ilaaliya rufiyaamiinta waa waxa hadda oo arkeen oo runtii in biri ka maalin ee dhacdo labadan gabdhood oo la arkay inay heshiyaan kadibna dib loo xasuusiyo wixii xumaa ee dhaxmaray baraha bulshada ku dhaxmaray labadooda taan buu ka hadlay marka waxaa moodaa qurux ku dhigle shakhsiyan waxaan aaminsanahay inuu yahay qof qalbi wanaagsan oo runtii si daacad ah uga hadlay dhaxaadna ka ah arrimahan kaleeto YouTube kale waxaa jira caan ah oo arrinta ka hadlay CK uu ka mid yahay naftiisa si fiican uga hadlay oo ku amaanaya laakiin raggan waxaan dhihi lahaa nimiyow dooni qaboojiya dejiya arrimaha nooca kaleeto annaka aan la imaanina fikirkaaga waa inuu muhiim tahay inay sheegay asxaabta video inuu sii dhaado mar habo haddii tahay janaalka markuu soo booqatana fadlan subscribe inoo saar